kusoo dhawaada casharkeena maanta. Topic about Teachers' Day. I'm confident that all of my friends would like to express their gratitude to our dear teachers, as we are always grateful students. On behalf of myself and my classmates, I would like to express my love and gratitude to all of the teachers who helped us this amazing journey. Thank you for guiding us, inspiring us, and making us what we are today and what we are going to be tomorrow. Good. Our teachers are very kind and helpful to us always. Teachers are often compared to a captain of a ship who helps us to reach the right destination in life. Good. Teaching is one of the most honorable jobs to ever exist. We have to honor our teachers for their valuable work. There is a huge support from our teachers that behind our success. Good. Teachers is a beautiful gift given us by Allah, because Allah is the creator of the whole world, and a teacher is the creator of a whole nation. A teacher is an important creature in the life of the student, because his patience and love gives a strong personality to the student's whole life. Happy Teachers Day to all our teachers. Thank you. haddaba macnaha ayaan u gudagalaynaa run ahaantii waa hadal aad u xigmadaysan oo qurux badan oo aan juhdi waqti u geliyey. waxaan ka cabsanayaa inaad muuqaalka aad like garayso maadaama CBM-ka YouTube-ka uu ka caawinayo like-ta aad saartid inuu dad kale uu sii gaarsiiyo adigoo share gareey ayay la mid tahay. Thank you. Topic about Teachers' Day. موضوع ama khudbad ku saabsan maalinta macalinka. I'm confident, waxaan ahay mid ku kalsoon, that all of my friends in guud ahaan saaxiibaday would like ay jeclaan lahaayeen to express in ay ka cadeeyaan ama in ay cadeeyaan their gratitude, mahadnaqooda. Gratitude waa mahadnaq to our dear teachers, ayna u mahadnaqayaan macallimiinteena qaaliga ah. As maadaama we are always inagu aynu alaaba aynu nahay ama hadijar aynu nahay grateful students, arday mahadnaq badan. qofku markuu mahadnaq badan yahay oo qof waliba oo shay qurux badan ama caawiya oo thanks ama mahadsanid uu ku leeyahay ayaa waxaa la yiraahdaa grateful person. marka as we are always grateful students, maadaama aynu hadijar nahay arday mahadnaq badan. On behalf of myself, haddaba ergan on behalf waxaa la adeegsadaa markii dad aad matalayso. tusaale adiga waxaad tihiin 5 qof aad tihiin 4 qof waa iska joogayaan adiga bixaysid waxaad leedahay marka on behalf of myself and my classmates, anigoo ku hadlaya naftayda iyo ardayda inuu isku faskalan. marka ergan on behalf waxaa la yiraahdaa markii dad aad magacooda ku hadlaysa ayaa la adeegsadaa. On behalf of myself, anigoo ku hadlaya naftayda and my classmates iyo ardayda aynu isku fasalka nahay, I would like, waxaan jeclaan lahaa to express in aan cadeeyo my love, jacaylkayga, and gratitude iyo mahadnaqayga to all of the teachers, ana u cadeeyo to all of the teachers, guud ahaan macallimiinta who help us, kuwaasoo naga caawiya this amazing journey, safarkan cajiibka ah. waa safarka waxbarashadu waa amazing journey. wuxuuna ku leeyahay thank you, waad ku mahadsantihiin for guiding us, inaad nahagtaan. guide waa hagid. Inspiring us, inaad na dhiirigelisaan. And making us, aadna naga dhigtaan what we are today, waxa aynu maanta nahay. And what we are going to be, iyo waxa aynu doonayno inay noqono tomorrow, berito. What we are today, waxa aynu maanta nahay. And what we are going, iyo waxa aynu doonayno to be inay noqono tomorrow, beritole. Cajiib. Our teachers, macallimiinteenu, are very kind, waa kuwa aad u naxariis badan. Kind nuucna way noqotaa laakiin hadda waa naxariis. And helpful, haddana ah kuwa caawinaad badan to us, inaga inoo ah always had a jeer. Our teachers are very kind and helpful to us always. macallimiinteenu waa kuwa aad u naxariis badan noona caawiya had iyo jeer. Teachers, macallimiintu,
are often compared to waxaa had iyo jeer la barbar dhigaa teachers macallimiinta are often compared to waxaa badanaa la barbar dhigaa the captain of a ship kabtanka markabka ninka kabtanka ka ah markab safraya ninka hagaya ee markabkaas jihadiisa haya ayaa la barbar dhigaa who helps us kaasoo inaga caawiya reach inaan gaarno the right destination in life goobta saxda ah ee nolosheena ergan destination waxaa la yiraahdaa tusaale muqdisho aad ka soo tagtay hargeysa tartaa muqdisho markii aad ka soo tagayso hargeysa is your destination hargeysa waa meesha aad u socoto marka goobta saxda ah aad u socotida waxaa la yiraahdaa destination marka teachers macallimiinta are often compared to waxaa had iyo jeer la barbar dhigaa ama badanaaba la barbar dhigaa the captain of a ship kabtanka markabka who helps us kaasoo inaga caawiya reach inaynu gaarno the right destination goobta saxda ah in life ee nolosha hadafka aynu nolosha ka tiigsanayno iyo meesha aynu u soconno cidda naga caawinaysa waa macallimiintayaga allah barakeeya teaching haddaba teaching baridu waa shaqada inaad wax bartid dadka inaad wax barto waxaa la yiraahdaa teaching teacher waa barihii teachingna waa barashada naftirkeeda ayaa waxaa la yiraahdaa teaching marka teaching baridu haddaan si kale u dhahno baridu is one of the most honorable jobs to ever exist waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu sharafta badan ee abid jira teaching baridu is one of the most honorable jobs waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu sharafta badan to ever kuwaasoo abid exist jira shaqooyinka jira waa mid ka mid ah midda ugu sharafta badan haddaba we have to honor our teachers waa inaynu ku sharafnaa macallimiinteena we have to honor waa inaynu ku sharafnaa our teachers macallimiinteena for their valuable work shaqadooda qiimaha badan for their valuable work shaqadooda qiimaha badan haddaba there is a huge support waxaa jira huge support caawinaad weyn ama kaalmo weyn huge weyn oo from inooga imaanaysa our teachers macallimiinteena that taasoo behind ka dambaysa our success guusheena waxaa jirta caawimaad weyn taasoo inooga imaanaysa macallinkeena kana dambaysa guusheena there is a beautiful gift teachers macallimiintu ama teacher macallinku is a beautiful gift waa hadiyad qurux badan given us oo uu na siiyey by Allah alle uu na siiyey azza wa jalla because maxaa yeelay Allah alle is the creator of the whole world waa abuuraha guud ahaan caalamka is the creator waa abuuraha of the whole world guud ahaan caalamka and a teacher macallinkuna is the creator waa abuuraha of the whole of a whole nation guud ahaan qaran dhammaystiran haddii aad aragto macallin ayaa ka dambeeyey oo macallinku keliya maan midka iskuulka ku dhiga qofkii maanta hal shay ku baro is your teacher waa macallinkaaga haddaba wuxuu leeyahay a teacher macallinku is an important creature waa makhluuq muhiim u ah in the life of the student and a teacher macallinku is an important creature waa makhluuq muhiim u ah in the life of a student nolosha ardayga ergan creature waxaa la yiraahdaa waa makhluuq ama creator waa khaaliq creatorna waxaa weeye waa makhluuqi waaye oo Allah subhanahu wa ta'ala uu abuuray because maxaa yeelay sababta uu macallinku uu yahay makhluuq muhiim u ah nolosha waxay tahay because maxaa yeelay his patience dulqaadkiisa and love iyo jacaylkiisa ayaa gifis waxa ay siinaysaa a strong personality shakhsiyad xoogan ay waxay siinaysaa to the student's whole life guud ahaan nolosha ardayga to the student's whole life guud ahaan nolosha ardayga erga whole waa gebi ahaan ama guud ahaan happy teachers day to all our teachers waxaanu leenahay happy teachers day to waxaanu leenahay all our teachers dhammaan macallimiinteena thank you mahadsanidin